cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa jegada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee waddan oo la hadlayay kumanaan iyo kumnaan ka mida shacabka kala duwan ee ku nool magaalada booramo isugu soo baxay ololaha xisbiga mucaaradka ee waddanaya waxa uu ka jawaabay dhaliilo uu soo jeediyey dhigaysa xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi musharaxu waxa uu been abuur ku tilmaamay dhammaan eedeymahaasi waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi saaxiibkayga aanu tartamayno ee xisbiga kulmiye iyo shalay waxay yidhaahdeen marka uu xumaanayo mashiinku wuu kuulaadaa soo maaha kulmiya wuu kuulaaday waxaa kululeeyey dhoolatuskii waddani ee isniintii la soo dhaafay saaxiibkay waxaa ka muuqatay cabsi waxaa ka muuqatay kalsooni darro waxaa ka muuqatay cadho waxaa la yidhi fiintu roobka daa'inta u weerto ee laakiin waxay ka baqataa roobka soo socda duufaanka soo socda iyo natiijada doorashada ayay ka baqayaan waxaa kaloo jecela inaan u duceeyey marka hore musharaxa kulmiye iyo kulmiye laftigooda nebi maxamed markuu daa'if tegey si uu u gaadhsiiyo dacwadda way shiideen marka waxaa lagu yidhi habaar si loo rogo reer daa'if nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan u ducaynaya markaa ducadii nebigaynu horta ugu ducaynaa reer kulmiye allahuma akfir lahum fa innahum laa yaclamuun waxaa kaloo laga ducaynayaa kulmiye been abuurka kulmiye intuu been abuuro ayuu haddana isagii rumaystaa beentu abuuray waa ka warqabteen bishii 12 sannadkii hore maraanu nairobi tagnay waxay sameeyeen sheeko iyo sawirro ay isku dabkabeen waxay la hadleen wargeysyada ka mida nairobi ka soo baxa waxay ku qoreen sheeko oo ah inaanu la kulannay ra'iisul wasaarihii soomaaliya joornaalka anigii baa la hadlay hargeysa jooga wuxuu ii sheegay in hargeysa lagala soo hadlay qofkii la hadlay buu ii sheegay lacagtay u soo direen buu ii sheegay joornaalku markii dambe uu beeriyey waa ka wanaagsaa sheekada tv-ga kalsan sheekay ka sii daayeen ay leeyihiin waxay la kulmeen farmaajo beriga madaxweyne mu ahayn tv-gii wuu beeniyey warkii sheekadii umay haddana dib u sameeyeen oo kabkaba saaxiibkay muuse kaadh wuu yaqaana kaadh keliya waa kaadhkii uu xoqay 1994kii xamar iyo inaan waxba ku meeraysan mid walba taariikhdiisa oo la yaqaanaa bal hadda waan xasuusiya muuse ereyo kooban saaxiibkay muuse waxaan leeyahay miyaad ilowday inaad madaxweyne hadda ku dhisay ee kootaa kuugu xidha inaad musharax noqoto ee kootaa kuugu xidha inaad guddoomiye noqoto inaad jidgooye u gashay ood la beegsatay dib miyaad ilowday in laguu haysto oo aad ku sultan tahay dilka halgamayaal badan oo SNM miyaad ilowday 1994kii inaad ducadii iska diiday oo aad dagaal sokeeye riday miyaad ilowday in ka badan 2,000 oo inan oo xabaalihii dagaalka ku dhintay inay ku aasan yihiin burco miyaad ilowday miyaad ilowday inaad madaxweyne ciyaal xafiiska u gashay ood ugu hanjabtay gidaarka rasaasta ku taalla madaxweynihii kaa horreeyaan ku riday cabdiraxmaan axmed cali waxaan ku darayaa intaas tuduc ka mida gabayadii gaaliye oo odhanaya haddaan guur kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaya arag ilay maxamed dhaatidgeed waxaan leeyahay saaxiibkay muuse mujaahidiintaad xabaashi ka soo toosisay iyo madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal waxay ka doorbidayaan inay aakhira iska joogaan inay maqlaan muuse biixi baa madaxweyne musharax uga ah Soomaaliland وخالد بكيلي فوقان رقو حلتا ستار تيفي